waxaa sharaf weyn oo ah maantay inaan soo gaarnay mataqaanaa gabagabadii qaybtii u dambeysay dastuurka cutubiyadiisii aan ka shaqeynay. saad ogtihiin markii koowaadba hay'adaha dastuurku waxay bilaabeen ama qorshe inay degsadaan qorshahaas oo idinka laftigiinu qaybaad ka heleen. qorshahan wuxuu ku salaysnaa in dastuurkii 15 cutub maadaama muddo dheer la isku dayay inuu hal mar isagoo dhamaystiran la geeyo baarlamaanka, waxaa la qorsheeyey oo loo manaatay in aan la kala qaybiyo oo saddex qaybood loo kala qaybiyo. 4 cutub oo horeysa, kadib cutubiyada 5 ilaa 9, kadibna cutubiyada hadda aan maanta ka hadlayno oo la tashi koowaad oo qabanayo halkan lagu qabanayo cutubiyada 10 ilaa 15. taas waxay sahashay runtii in guul weyn oo taariikhi ah la gaaro, taasoo ahayd 4 cutub oo horeysay si guul ah in loo ansixiyo. aad ogtihiin iyadoo la tashiyo badan baarlamaankii 254 labadii saacada runtii ansixiyeen. juhdi badan oo la tashiyaa la soo gashayna iyo la tashiyadii ama heshiisyadii siyaasadda la soo gaaray baarlamaanka ugu dambeeyay ay gaareen wax badan ay ka bedeleen. dukumentiga ugu dambeeyay oo la tashiyada heshiisyada siyaasadda ugu iskaraysnaa yani baaristaba markii la geeyey go-aankooda ugu dambeeyay ayaa qaatay runtii wax badan way ka bedeleen. way ka mid yihiin madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka, ka mid ahayd labada xisbi, ay ka mid ahayd guddigii arrimaha dhulka. arrimo badan oo saas oo kale ah adigu bay bedeleen. runtii cashar baan ka baranay. casharkan ka baranay waxay ahayd rabitaan siyaasadeed hadduu jiro in wax walba qaban karo. waxaan bogaadinayaa wasiirka iyo runtii maamulka madaxweynihii fadhiye iyo maamulkooda iyo dhammaantooda waa bogaadinaya dhismaha hadda uu ka hadlay dastuurkooda samaysanayay maamulka waqooyiga bari. muddo kooban maxaa yeelay rabitaan siyaasadeed iyo rabitaan shacab oo wada socda baa jiray. marka bogaadinaya runtii maamulkaas oo kusoo kordhay dalka Soomaaliya oo rabitaan siyaasadeed iyo rabitaan bulshada ku yimid. marka waxaa wadaa haddii rabitaan uu jiro casharka baran ahayd in haddii rabitaan uu jiro rabitaankaas uu mataqaanaa macno weyn keenayo baan baranay. waxaan kaloo baranay in wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ay macno weyn ku fadhido iyo guusha ay ka tahay. waxaan kaloo ku baranay in bulshada haddii lala tashado in ayadana wax badan oo ka mid ah ay sahlayso wacyigii dadka iyo wacyigii siyaasiyiintaba inay bedelayso. runtii waqtigii nafta cutubsaas ku dhammaatay cutubiyadii ku xigtay la tashiyadii aan qabanay mid ka badan ma sii qaban. waxyaalahan baranay ku jirtay waxaan gaarnay meel kasta. arcadda wasiirku iyo maamulka aad baa noo soo dhaweeyey. wasiirada halkan fadhiyana iyo runtii shaqo fiican oo weyn soo qabteen ayaguna oo magaalooyin tiro badan ayaa la gaaray. taasna waxay ka mid ahayd in meel weyn la gaaro. intaa waxaa sii dheereen qurbo joogtii laftigeeda inaan gaarno oo meelo kala duwan ayadana gaarno oo la tashigaas uu macnihiisu ay noqdaan bulshada Soomaaliyeed la gaari kara. intii aan la fariisan weyn waxaan sameynay barnaamij online aan sameynay si bulshada qeybaheeda kala duwan ayaguna ay ka soo dhiibtaan oo runtii number aad u tiro badan oo 10,000 ka badan ah ay ka soo qaateen ummadda Soomaaliyeed. su'aalihii dadka ka foorfoorka loo weydiinayay waxaa markaa cutubiyada ka harsan cutubiyada 5 waa dhameeyay baarlamaanka iyo guddiga la socodka loo gudbin, laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah in loo gudbin doono. waxaan laakiin go'aansanay in cutubiyada harsanaa ayadana shaqadeedii sii bilowdo. guddiga madaxa bannaan shaqadooda waa bilaabeen cutubiyada runtii lagu dhabar waa mataqaanaa dowladnimada. waxay ka hadlayaan waa amnigii, waxay ka hadlayaan waa dhaqaalaha, waxay ka hadlayaan shaqaalaha. arrimahaasay ka hadlayaan oo runtii laf dhabar waa mataqaanaa hay'adaha dowladda iyo dowladnimadaba iyo sida dowladnimadu u shaqeynayso. maxaa yeelay haddii hore waxaa loo soo shaqeynay cadaaladii oo garsoorka, waxaa laga soo shaqeeyey dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe federalismka laftigiisa, waxaa laga soo shaqeeyey hay'adii federaalka oo baarlamaankii madaxweynihii xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa laga soo shaqeeyey. marka cutubyadan hadda xigana
وقعنت أو كوهنا وحرمنا صباح الموت ما نقول صلينا مركز وشجنا أنت كوهنا هاي هدي شيء سياسة وجلو وضعنا دستورنا فرعية كبدو ملاح برنامج إن تحقيقات كوهنا الشيء سياسة للسيو أنا مكان سمعنا قريب الدستور كما سمعنا وأنا شيء سياسة وجلو شيء سياسة وجلو وأنا تحقيقنا لكن ما كنت بنحس كلام بعمل وبرنامجكم شيء سياسي سياحة كبدلك لكن أنا أرى شيء كنا دستورنا قلبنا كذا قلبنا كلام حاجة ولا أنت الوضع تاع البارس والبارس تربنا وكنتي ودماء تربنا إلى سياش يقول وده انجارني محرومة هي عبد القادر حق الفريق هي هذه السبب وكنتي شركة نقل من كاها البارس ترى كنتي منطقة نقل من كاهد وأيضا البارسات تربنا وكنتي رداء فرقة joogaan iyo rag kala badan oo cadaan ah oo wadamada kale ah waxaan ka faa'iidi karno ayaan sameynaa haddaan aragtay tuulooyin hore waxaan soo marnay aad cilmi baarisyo u tiro badan oo sahlaya qofka muwaadinka Soomaaliyeed inuu fahmo waxaan maxay ku salaysan yihiin go'aanka la qaadan karo maxaa la qaadanaya arrinta saddexaad waxay ahayd tashiida hay'adaha dowladda iyo sidoo kale dadweynaha oo maanta halkan ku furan inta badan waxaan sameynaa hay'adaha maadaama heer federaal ay kala duwan yihiin meesha wax ka bilowno oo saldhigga noqoto ayadu weeyaan kadib waxaa la kulanaa hadhow dowlad goboleedyada tigi doona oo waana tigayba kadibna waxaa laga kulmayay bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan heeraha dowladda waa laga kulmay runtii meelaha la tegay barnaamijyaasha guddoonka baarlamaanka wasiirada garsoorka iyo sidoo kale waxaa laga kulmayay bulshada qaybaheeda kala duwan magaalooyinka ay ka fog yihiin waxaan la kulminay qaybaha bulshada kala duwan baa la kulminay marka waxaan rajeynayaa insha Allah anagoo saddexda tixgeliyayna in cutubiyada qorsada u marna wadada marnay oo ahaa heshiisyada siyaasadda la tashiyada iyo sidoo kale baarista inaan ku salayno aan mataqaanaa shaqada soo dhaweyno la tashiyada ay socdaan baaristii ay shaqadeeda noo socoto haddii la yiraahdo waxaan rajeynayaa insha Allah shirkan inuu ka soo bixi doono la tashiyada soo socda wixii lagu jiheyn lahaa oo tilmaan lagu sii bixin lahaa waxaan soo bandhigi doonaa Abduqaadir iyo tiimkaas waxaan sharxi doonaa sida shirkan uu noqon doono natiijada laga sugayo waxay noqon doonto natiijadaas marka iyo cilmi baaristaas iyo heshiisyada siyaasadda go'aanka waxaas kala anigu ma lahayn baarlamaanka la geenay baarlamaanka marka go'aanka u dambeeyana qaadanaya waxaan sameynayay haddaan aragteen bal tashiyada qofka Soomaaliyeed ka qaatay codkiisa soo muuqaala soo mataqaana cod ah iyo soo qoraal la wadaagay siidada iyo meelaha ay heeru leeyihiin oo la soo gelin doonaa bixinta ma ayuu daawacan wala hayay baarlamaanka iyo bixinada waa lagu soo bandhigay la tashiyada qaban jiray hore waxay jiray la tashiyada qofku inaan u qaato laakiin taas ma dhacayso la tashiyada la qaban qofka soo ku qalgalay iyo talada bixiyay sida loo tixgelin analysis-keedana waa sameynay waxaan ku rajaynayaa insha Allah kuwa sidaas kala noqdaan waxaan bogaadinayaa oo runtii u mahadcelinayaa madaxda hay'adaha dowlad goboleedyada ee halkan yimid waxaan rajeynayaa insha Allah shirkan maadaama madaxda tihiin inta badan madaxda halkan lagu yeeray oo loo heeraa baa fadhida inaan mataqaanaa natiijo wanaagsan ka soo baxdo talada aan qaadanana Soomaaliya oo dhan bay deeqi kartaa waxaan rajeynayaa insha Allah dadka Soomaaliyeed gaari doonana inaan gaaro aad baa wanaagsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.